dhinacayga bidix fadhiyo asaasaha shirkadda ugu weyn ee dhanka software developerska ama dhanka ICT-ga engineer Zahra Cabdikariim ka waran shirkadda ugu weyn dalka oo software developers qofka asaasa qof sahlan ma sax xoog badan ku sii dhaweeyay intaas su'aasha weydiin sidoo kale waxay ka mid tahay sistemada ugu waaweyn dadka develop gareeyo oo ay ka mid yihiin sistemada waxbarashada ganacsiga tiknoolajiyada qaybaheeda kala duwan su'aasha waxay leedahay xirfad noocee ayaa suuqa maanta looga baahan yahay ama dhanka shaqada marka la fiiriyo sidee ardayda u horumarin karaan inta ay ku jiraan iyagoo intana soo dhammayn jaamacadda yani hadda waxaan arkaynaa maadaama ay aad u yaraatay fursadihii shaqada talooyin guud inaad siiso maxaa la ardayga sidoo fursado shaqo u abuuran karaa inta ku guda jira jaamacadda intuuna soo dhammayn ka hor marka xirfad noocee ayaa looga baahan yahay suuqa shaqada maanta sideena ardayda u horumarin karaan xirfadaha inta ay weli ayna soo dhammayn jaamacadda والسلام عليكم أنت ما أنت فلسوا برنامج أي جامعة مقدشة أي سوق من قابسي هذا نوهم بلينا جامعة مقدشة موضوع جهة أنا وحان دري مركو يسو شير كري أستاذك برنامج هدي دبقة أوفيرسو طبعا سنة كهر لأن يرى أذنك إذا لميت مهل جيرين فرصة نوعان وكله taasi horta waxay ka bilaabanaysaa fursadaha laga hadlaa iyo suuqa sideen u wajahnaa mowduucayga hadaan ku soo laabtay su'aasha adiga ardayga ee qalin jabiyay ama qalin jabin rabo suuqa aad rabtid inaad ku soo biirto horta qaabkee rabtaa inaad ugu soo biirto suuqa ma waxaa rabtaa inaad ugu soo biirto adigoo agdage mase waxaa rabtaa suuqa inaad ugu soo biirto adiga oo kaaba maxaa ula jeedaa agdaga iyo kaaba annaga dhaqana jiro oo bulshadeena ay iska samaysantahay oo yiraahdo hebel muxuu furtay hebel waxa soo furay anna iiga daba fur heblaayo maxay furatay heblaayo waxa say furatay iiga daba fur qoliyahaasi waa qoliyaha agdaga ugu dambeeyna ficilka ay bilaabeen waxa waaye ficil kii ka horeeyay iyo asaga iyo ayadaba ay iskula hoobtaan intaan xirfada gelin waxaan rabaa suuqa laftirkiisa nooca uu yahay iyo fikrada adiga maskaxdaada ku jirto horta bal inaad isku laabato haddii aad noqoto qof agdaga waxaa laga yaabaa maalmaha hore wixii aad gasho ganacsi ahay in aad maalmaha hore wax aad ka faa'iido laakiin waxaad ogaataa kuwa kala sidaas oo kale ku soo agdagi doono routiinkiya la wadi doona wadankiina waxaa ku badan doona toobiga hadda aan taaganahay oo shaqo la'aanta meesha waxaa ka bixi doono inuu hal abuur yimaado in la xaliyo problemyo jiro mar haddaad qaadato wadada kale ee kaaba waxay tahay wada adi aragtid inaad wadankii kor ugu soo qaadid adigii laftirkaada khibrad iyo nolol iyo wax ka bedel qof wax ku oolahaad noqonin laakiin waxay kaaga baahan tahay waqti iyo barasho suuqa horta suuqa waa suuqaas ama inaad kaabo noqoto ama inaad agdaga aad noqoto waqtiga la joogo iyo xirfadaha iyo shaqada loo baahan yahay haddii aan fiirino ani technology way background-kayga laakiin business mindset aan leeyahay wax badan aan businesska iyo wadanka ku soo joogay maanta la joogo maxay tahay baahiyaha wadankeena ka jira ee uu qabo tusaale yar haddaan isweydiino beeraleydeena haddii aan fiirino marna waxaa ku fatahan roobab marna waxay la ciirayeen abaaro meeshaas haddaa fiiriso suuq weyna ka jiro oo haddaad business fikirkiisa aad la timaado aad wax ka qaban karto tusaale sisina anaga laga yaabaa 0.9 kg-giisa inuu qofkan ugu fadhiyo uu rabo inuu turki geeyo ama dibadda uu sii geeyo ganacsade laakiin si la mid aha waxaa laga yaabaa digirna inay u soo go'do salbukana ay u soo go'do kiishki waxaa laga yaabaa digirtii ama salbukada in mid laga keenay Tanzania ama Kenya uu joogo $45 Kenyana uu $65 joogo ganacsadahaasi markuu rabo inuu ka shaqeysto yuu doorana waxa u raqiisan oo aada sama ganacsadaha ma khaldano ee waxa naga maqan anaga dadkeeni dhalinyarada ah ee wajiyadan qurqurxan ahay inay hoos u fikiraan ay fiiriyaan war anaga maxaa naga dhiman oo shaqana ku abuuran karnaa horumarna aan ku sameyn karnaa
soo dhalinyarada waxa u furan waxay tahay in ay ka fikiraan aasaasiyaadka nolosha si ay baahida dalkina u daboolaan ayagana ay fursado shaqo ay u abuurtaan qofkan waxaa laga yaabaa kiish digire markii la soo guro inay 50,000 shilin Soomaali ee lagu shukulo 50,000 kale ninkii soo gooyo uu noqdo kiishka inay 600,000 800,000 shilin Soomaali uu ugu fariisto ninkii beeraleyda ahay waana lacagti ay suuqa ay ka joogtay ninkaas kharashka ka baxay iyo ninka Tanzania joogo kharashka ka baxay waxa kala duway waa cilmi la geliyo beerahaas waa xirfad la geliyay beerahaas example just waa beero laakiin wax walbo anaga nolosha kamid ah yaan xirfado ugu baahanahay waxaad ka soo qaadaa fildiga caafimaadka dhowr sano u dambeeyay aan wax ka aqrinayay markaad banaanka aad u baxdo waxaad arkaysaa dad badan oo kala duwan oo nolosha meel walbo kamid ah fildiga caafimaadka ee qalabkiisa tiknoolajiyadiisa fahansan markii anaga wadankeena la yimaado laakiin ay ku qasban yihiin bahda caafimaadka inay dad keenaan oo banaanka laga keeno nacam waxaan isleeyahay jiheeye iyo jaamacad muqdisho fursad kala u furan ay ardayda suuqa ugu sahmiyaan ay u ogaadaan waxa ka maqan gaabka ka maqan si loo maalgeliyo jiilashan qurxan laakiin dhalinyarada ayagana waxa qasab oo muhiim ah xirfada kaliya ma aha waxa nolosha hogayso waxa nolosha hagaya waxa kamid ah ina adiga aa leedahay yani commitment ana leedahay meel aa u socotood rabto inaad ka gungaarto shaqadana iskama imaanaysa xirfado kala duwan ay u baahan tahay xirfadihii hadaan fiirino mesela technology oo kale hadii aan wax yar fiiriyo waxa laga yaabaa dhalinyarada TikTok ku jirto waqti badan TikTok ku bixinaya inay shirkado badan u baahan yihiin in wax loo duubo wax loo xayeysiiyo wax laga qaban karo adina aad ka faa'iideysan kartid hadii skill yar aad baran lahayd ee aad ku kabilahayd marka suuqa shaqada wax badan u baahan yahay xirfadahaasna waxay u baahan tahay dhalinyarada inay ayaga diyaar u noqdaan markay jaamacadda dhigayeen ay bilaabaan luqadda Englishkan inuu yahay aasaaska numberka koowaad adduunyada kula macaamileed waa maasan tastaan aad iyo aad ay u maasan tahay engineer Zahra talooyinka guud ee bixisay inta marka ka soo gudbo su'aasha xigta waxaan siin doonaa engineer Zahra Cabdikariim dad inta badan waxaan ognahay maanta waxaan ka hadlaynaa doodeena sidee dhalinyarada shaqo hal abuur ganacsi ku sameyn karaan xagee ka heli karaan dhaqaalo sidee waxaan lahaay sidee ku qalcin karaan dadka dhaqaalaha leh in fikirkooda maalgelin oo helaan marka iyo talooyin guud hal daqiiqo ayaan ku siiyaa dawladda insha Allah su'aashaada xagee dhaqaale ka heli karaan horta qofka dhaqaale inuu raadiyo waxa horta asalka ah waxa uu rabo inuu dhaqaalaha uu geliyo uu rabo hanti inuu geliyo inuu marka hore qiimeyn weyn ku sameeyo si in return waxa uga soo laaban doona bari uu ogyahay in aad hesho maalgelin waxaan u maleynaa 10 sano ka hor maalgelin aanan jirin jira maanta bangiyada way nala fadhiyaan hay'adaha caalamiga jiraan institutionada jiro loo sameeyay gargaar bank uu kamid yahay ay ka heli karaan dhalinyarada mashaariicdooda iyo fikradooda maangalka ah meel ay ula tagi karaan aniga waxaan ku diri lahay dhalinyarada fikrada aad la iimaanaysaan ha noqdaan kuwa wax ka bedela wadanka waqti ma idin qaadatay mahadsanid aad ay u maasantahay saa igu soo koobto sacad iyo siiyo marka jireed aad